gaalnima u geysa maaragtay inuu ka hadlo waxyaalaha diinta la xiriira oo diido gaalnima u keenta waxa kale uu keena culimadu yiraahdaa istihzaa inuu ku jeesjeesayo waxa kale uu keena istustus hal laga sheego awgeed inuu diin u baabi'iyo oo diinta uga hor yimaado بالمناسبة waxaan arkay hadda asbuucana waxa la soo diray meel walba gelinay nin Soomaali ah kole hadda waxa weeye YouTube-da meelahaas aad ugu jira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku jeesjeesaya bal Ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yaan naag muxuu noqon waay qolaacdaan oo meel ku soo xareystay oo wax ka rabay buugna waa qoray balay buug buu qoray marka buugiibu meel ba gaarsinay marka ninkaasi Abdi Iftiin baa leeyahay kulay aad baa loo wareejinay maalmahan ama Soomaali kawbo wax nooc sirada Soomaali way waxa kamid ahaa waxyaaluhu yiri hooyaday baan waxaan weydiiyay buu yiri qolada gaal hortaagay marka hooyaday baan waxaan weydiiyay waxaan ku yiri hooyoy bal waxaad iga warantaa jannadu soo egtahay markaas wuxuu yiri waxay tiri waa wabi biyo ah waa wabi caana ah waa wabi malab ah beera ku yaala saas weeye markaas wuxuu yiri marka inta ay sheegtay buu yiri waxaan ku yiri that looks like America waxaad ka waramaysaa waa America sabab loo qoslaya marka aad baa loo qoslaya waxaad ka hadlaysaa America weeye waa yani istihzaa iyo jees Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku jeesayo waxa kamid ah waxyaalaha uu maaratay ninkaas ka hadlay waxaan aad iyo aad uga daalay buu yiri aad iyo aad waxaan ugu daalay in ma hadi goor maqlo in la yiraahdo ma taqaana yani Ilaahay waa nin marna aan maqlin yani Ilaah naaga baa jira danaga islaamku sheeganay Soomaarti yani dumar meel isugu keenay wax noocaas u qoslaya marka waxaan la yaabanay buu in la yiraahdo buu Ilaah nin jira yani oo maxay naag u noqon weyd Ilaah naag u noqon waay oo waxyaan la yaabanay buu ya saas isagu leeyahay waxa kamid ah waxyaalo ka hadlay uu leeyahay markuu cibaadada ka hadlayo anu wax kasto aad yani aad u cibaadaysanaysid I don't care marba hadayna yani u wada tukanayna hal goor buu yiri goorkaas ama ha ahaado naag ama ahaado nin ha noqde wuxuu doona ma noqde mar hadayna hal goor u wada tukanayno wixii kale waxay ma galin kufri ka weyn ma jiro waxa inta ka daran yani jeeska oo salaada ku jeesa waxa kamid ah yani waxyaalo ku jeesa diinta wuxuu ka hadlay madrasada quraanka la soo dhigto wuxuu ka hadlay markaas wuxuu leeyahay madrasada quraanka يعني si aad u lidato uga hadlaya hooyada markay geysay yani dhig baa laga keenaya hooyo wax khayr baa ajar baa helaysa waxa ka socda wadanka waxa ka daran wuxuu ka hadlay waxa loo yaqaan dhaxalka waxyaalaha aan doonayaan Soomaaliya badalno oo aan maaratay aad iyo aad uga xunaa waxa kamid ah buu yiri aaba haduu dhinto gabadha waxa la siinaya wiilka waxa la siiyay haafkiis baa la siinaya waa jahli baa u geeyay dhaxalka marka laga hadlayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa qorsheeyay cid wax la siinayo وأكتين وحنا أوبان دمر كأوبان رجع الله وحده قرشيء إن قيمة قان ليه هاي أباها ولا لك هو يضع شيء ينك سوتش كلو يقان هدي ناقد وتو أنت كلو دمر ويان مثلا نبعد أنتي وحكتي قبري هو يديس قبري النسبة له حولي هو يدي نسبة حبيبه مال بلاله سو قبر مبنا نسبة لسي حولي مالي يبلو كده أنت أبيه شاب الله كم بلك عند قبري نبعد أنتي laba gabdhood buu ka tagay iyo ka wasaqad yani hooyadiis buu ka tagay labadii gabdhood thuluthayn bay leedahay waa 2/3 wax loo yaqaan hal malyan haday ahayd ila 700 kun bay gabadha qaadanaysa laba gabdhood qaadanaya Ilaahay baa qorshay subhanahu wa ta'ala markasta ma aha in gabadh laga badanya ma hatta markay la xalaayaan wax loo yaqaano ikhwatul wax loo yaqaano hooyada walaalahay dhashay looma ictibaariyo meel badan dhidakari mithla hadul untayni gabadh lama siiyo qayb wiilashan laba qayb lama siiyo سيستم بيو قيبسنايا لبا gabdhood oo walaalaha baa qof ka dhintay labada gabdhood waxa la siinayaa 3 meelood oo laba meelood baa la siinayaa laba gabdhood isku aabay isku hooyo yihiin haduu ka dhinto gabar ay isku aabay yihiin labada gabdhood isku aabaha isku hooyada yihiin 3 meelood laba meelood baa la siinayaa gabadha isku aabaha yihiinna waxa 6 meelood baa la siinayaa wixii kala hooyadii baa qaadanaya soo martan islaamku kuma ciyaaro dumarka laakiin qofka jaahilka baa wuxuu leeyahay intuu hal meel ka fiiriyo oo مثلا nin baa ka dhintay wiil gabar oo kale markaas waxa la yiraahdaa dakari mithlu hadul untayeen oo gabadha waxa la siiyaa wiilka waxa la siiyaa laba meelood gabadhana meel baa la siiyaa yani gabadha intuu wiilku qaatay barkeed kale laakiin inta kale waad aragtaa
hooyada mar waxay qaadataa 6 meelood oo meel mar waxay qaadataa 3 meelood oo meel bay qaadataa waxay ku xiran tahay haddii walaala joogaan haddii carruur joogaan bay ku xiran tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qorsheeyay haweenta aad qabto haddaa ka dhimato haddaa carruur leedahay 8 meelood oo meel baa loo qorsheeyay hadday carruur hayn 4 meelood oo meel baa la siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dejiyay soo maarta cadaalad weeye laakiin waxay fiirinayaan intaasay fiirinayaan oo abuu hadduu lacag u haysto wiilkiisu ka cabsa inuu qaato dhaqasu maartay dhaxalka uu qaato yutuqa khaarijin hadduu khaarijiyo wiilka waxba kuma leh ina kuma leh iyo waysiin haddii aan markaa kuna sinaya saa wasiyan sida uu sheegay qofka qaatilka ahi wiil baa kaba soo qaad wuxuu yiri aabihiis baa mataqaana buu u dilaayay xoolaha weelo sharcigeena haddii wiilku aabihiis dilo wiilku dhaxal ma leh wujuuduhu ka cadami bay yiraahdaan يعني حتى ما وحما كينايو كلا oo banaanka loo saaraya taariikh waxa la mid ah qofka gaalka la mid ah dhaxalka waxba kuma leh laakiin soo sheega weyn wadankan wuxuu u dilaa ninku aabihiis inuu xoolaha helo jarma kayba oo kala caday شخصك جاهلين وما يسوق ما جاهلين وما قال لي ما هيسا ninka waxa weeyaan waa waxbuu raadinayay istihsaa diinta islaamka inuu jees Soomaa waxa igu daran wuxuu yiri marna waqti ku qaatay islaad ee baalkee 10kee wuxuu ka hadlay markuu wadanka yimid reer gaala baa leeyahay ay bay lahaayeen maalmo hore waa ka baqi jiray meel ba masallayo oo laan ku tukan jiray iyo wax maartay baasha lagu istijoodo waaga dam eegi baan la qabsay labadiba waa tuurbi ويسدي حاجة قريبة باني باش محله كومبدي يو مسألة حاجة كتور أجي بالله صحيح السوق اللي هذا جري فيري يعني الوجه السياسية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل هذا الصحابة أو في صدق آيات كنت تكتبي يعني رسولك إلهي يا آيات كيسي بكوجه السياسة بل يا إلهي صدق لا منكم مجلس السياسين حين كوجه السياسين صحابة كانوا وحي يرادين لما كان صحابة هي عنتبضا بعونان دقالكم مركو يمادنا وعرران انت سير هذا مرافقين باين محل لو يري قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون نينكا مسالها ku jeesjeesay waana ilaahay iyo rasuulkiisa kullu ku jeesjeesay way khatar weeyaan waa dambi weyn weeyaan waa gaalnimo weeyaan marka khatar weey qad kafartum ba'da iimaanikum bal la ta'tadiru ha'udaran waliba waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay saa umadan lahayn oo toobadkan yani ba ka muuqatay la ta'tadiru bi qad kafartum ba'da iimaanikum ninka isaga ahi diinta islaamka barnaamij waxa arkay meel lay waa toobad keenay hada toobad keenay kitaabku qoray waxaan ku qoran yihiin ilaahay naag ma taqaan ku soo toobayso kitaabku ku qoran yihiin gabdhihi islaamka maaratay in la dulmiyay kitaabku ku qoray maxay toobadaas keenaysa marka ilaahay ka cabso subhanahu wa ta'ala